Tartanka iskuulaadka ee kubadda cagta ee gobolka Banaadir ayaa maanta iskuulkiisa la qabtay. Tartankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay Wasaaradda Dhalinyarada Ciyaaraha Maamulka Gobolka Banaadir, sidoo kale Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya. Sanadkan iskuulaadka ka qaybgalaya ayaa laga dhigay 34, horey waxa uu qaybgali jiray 16 iskuul. 34taas iskuul ayaa waxaa loo qaybiyay 7 group oo waxayna ciyaari doonaan 7daas is-arag oo aad u xiiso badan, waxaana tartankan furmi doonaa 14 bishan ee July ee ku guda jirno. Waana tartan aad u xiiso badan oo sanad walba la qabto. Tartanka iskuulaadka gobolka Banaadir ayaa iskuulaadkiisa sidaan u dhacay groupka A waxaa markaasi ku jira Abu Hurayra, Almaji iyo sidoo kale Kulmis Zone, Imam Shaqawi ayaa isna ku jira iyo Al Aflax. Shantaas ayaa group A ku jira. Group B Rayyan ayaa markaasi ku jira, sidoo kale Al Nasiib iyo sidoo kale Macalin Xuseen ayaa qayb ka noqon doona, iyo sidoo kale dugsiga hoyga Xamar iyo Amjad ayaa ku jira group B oo iyagana 5 koox ka kooban. Groupka C ama group A waxaa ku jira Somali School, sidoo kale Macruuf, Ciinu Raxma, Tusma, Al Hayaat ayaa isna ku jira. Waana 5taasi dugsi oo markaasi ciyaari doonaan tartanka kubadda cagta maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda ay soo qabanqaabiyeen. Group C ayayna ka kooban tahay. Groupka saddexaad waa group D, waxaa ku jira Global 1, sidoo kale waxaa ku jira dugsiga Khadija ayaa isna qayb ka noqon doona, iyo Hayaan iyo Al Furaad ayaa ku jira tartankan, iyo sidoo kale Banaadir International ayaa qayb ka ah. Waana groupka D oo groupka saddexaad. Groupka afraad ee group E waxaa ku jira Rawdatul Raxma, Banaadir Zone, Soyaal iyo sidoo kale Al Huda iyo sidoo kale Al Zuhays ayaa qayb ka ah, oo 5taasi iskuul ayaa markaa groupka E ku jira. Groupka markaasi qayb ka noqon doona oo markaasi noqon doona groupka F oo groupka lixaad ah, waxaana ku jira dugsiga Macalin Jaamac, sidoo kale Muqdisho International ayaa ku jira. Sidoo kale CD ayaa ku jira iskuulaadka ciyaaraya. Hilaal School ayaa isna ku jira. Tazeer ayaa groupkan ku jira, waana groupka F. Groupka ugu dambeeya waa group G, waana 7da group markaasi ciyaari doonaan. Waxaa ku jira dugsiga markaasi lagu magacaabo Care School oo markaasi ka mid ah iskuulaadka lagu casuumay. Daljir School ayaa ku jira. Al Aqsa ayaa isna ku jira, iyo Daaruneelen ayaa markaasi ciyaaraya oo groupka G ay ku jiraan. 7daas group ayaa markaasi ka wada mid ah tartamada ee wasaaradda isboortiga iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ay u qabteen, oo qaybna ay markaasi ka yihiin Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya. Ciyaarahan ayaa lagu ciyaari doonaa qaybaha kala duwan ee garoonka magaalada Muqdisho, garoonka Engineer Yariso iyo sidoo kale garoonka Stadium Muqdisho.